magacii ninka Ingiriisiga oo meesha ka soo saaray oo tarakuuka ah marka meesha waxa la rabaa yani in la fahmo ma farna fi kitaab shay waxa loo jeedaa waa lahul mahfuudka wax ka soo sheega laakiin kitaabkeena quraanka fa in lam tajid ayaa ku jirta taas waa mid kale waxay tahay kitaabadan inoo qoran ee fiqiga ah safiinaha ka soo bilow sheekh ayaa qoray faslun hada kan faslun fasal waaye oo inoo qoray نواقض الوضوء فرائض الوضوء مبطلات الصلاة وقري منهاجك شيخا قري وشرحي ووحل قري وقاذا لكن حلقة سوى استنباضي ولقى سوى بحيي كتابك حينو أقول يا مركة وحي عن حلال يا حاران أهين وهذا مثلا خمرض وحاران خربض وحاران زند وحاران haddii dastuur la sameeyay inta la dhooyado adduunka maanta gaalaha haysatee bangiyada rabay ku shaqeeyaan aan ribada xalaalayno inagoo Soomaaliland dhahna dhaqaalaha si uu kobco gaalada bangiyadeeda ribada isticmaal ayaan la shaqeysanaynaa saas daraadeed ribadu way banaantahay haday qaar dhahan oo saa ku soo qoraan lagama yeelay maxaa yeelay taxliilka iyo tahriimka ilaahay baa iskale wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halal wa hada haram litaftaru ala allahi alkadhib لكن كورم هدان دجسنا قانون كلا يلاهدو قانون توظيف العمل شقادة دتك سيدا الله سيو حيالي مثلا وزارة ماشي عنا يتعالى شقالين يقالتين ربطا هدي عن قانون الله سميني شقالها الغو قاتو وحا إيمان إيسا قفكي معمولا الله قد ديقو وزارة داس انت المعذير كأيهين لأنه كقرو شقالات هاي أدنا شقالات هاي أدنا شقالات كل وذا شقالة كديقو ورسلان محاي تاي محاي أهان الله هيدا وزيرك محا 4.5 soo lagu ma qaybsan wasaaradda annaga iskale war sidaas ma aha wasaarad ummaday ka dhaxaysa canshuur dadka laga qaaday ayay wasaaraduhu ku socdaan saas daraadeed dadka shaqada laga siinaayo qaanuun la isku og yahay waa in loo sameeyo qaanuunkaas dadka shaqo siintooda ah waan sameeynaa waxa jira qaanuun la yiraahdo mesela qaanuunul muruur wadooyinka sidee loo maraa hadda mesela jidkan horteena mara ee afgooyo aada baabuurtu marka ay marayaan laba dhinac ay kala maraan kii afgooyo u socda dhanka midigtuu maraa ka afgooyo ka imaadayna dhanka bidixduu maraa way isgarab socdaan marka haddii maalan ku afgooyo u socda intuu ka baxo dhinaca midigta ah oo dhinaca kale uu maro dadkoo dhan maxay dhahayaan hadda waa iskala qabsanno waa iska maraa ma ogiye laakiin maxaa leeyahay baabuurkaas sharci darro ayuu wadada ku marayaa oo seedkiisii ama dhinaciisii ma ah haddii taraafikadu ay qabato maxay dhahayaan mukhaalafu ku jiraa wuxuu khilaafay qaanuunkii oo wadada lagu mari lahaa ganaaxa laga qaadaya hadaa tiraado qofkan 100,000 oo shilin Soomaaliya laga qaaday maxaa looga qaaday aayadee looga qaaday hadaa tiraado aayad ganaax sheegaysa oo ku dhahaysa 100,000 laga qaado qofkii jidka afgooy asagoo dhinacii kale ka maraya dhahaya ma helaysid xadiisna ma helaysid laakiin hadaan saa loo nidaaminin shilalka baabuurta iyo isku dhacaya badanaya saas daraadeed wixii macnaha dadku ay waxooda ku nidaamsanayaan nabi wuxuu yiri antum a'lamu bi umuri dunyakum adduunyada nisaa u dhaqanaysan idinka taqaanaan laakiin waxaan la ogolayn wax shariicada khilaafsan hadda inaga Soomaaliya hadaan nahay burburkii kadib wax un dawlad la isku soo yara aadiyo waxa laga soo bilaabaa 2000 shirki carta waxa qaban qaabi oo ogtiin Soomaalida ayaa taariikhda maxay ku fiicneen ma ogi waxa qaban qaabi dad bulsho rayid ah oo culimo ay hogaaminayaan oo hogaami kooxeedyada xilligaas jiray qayb kama ayna ahayn waxaa isku aadiyay odayaashii dhaqanka ganacsatadii